أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنو هذا الماها هم بريزي أرق ماها هنو هذا الماها هم بريزي أرق ماها بم وهذا بم ببرتين بلا لسكن فيا برواقان كجرا عرك عباري جرا غريغي waan dhameystay dhexdiisa aan fadhiyo qadaan ku cunay intaan ku karsaday maanta kala shaqaale way iga maqayn qadaan inta halkaan ku karsanay oo cunay ba wallahi billahi taala cuntada maanta aan cunay maskaxdayda iyo shaah maanta aan cabay macaankiisa iyo baasta maanta aan cunay iyo suugo iyo hilibkeeda macaankooda inaan ka sheekayn karin inaba caadi maaha anoo maamuliyada oo idin channelkayga hadda daawataan subscribe-ka iyo samanka iyo share-ka iyo saara horta hore nimcada ilaahay baa bixiya gurigii shalay aan qoraxda u fadhiyay oo banaanka u fadhiyay oo deydka u fadhiyay oo aan cilooday oo aan gubtay oo aan kulaaday horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee cirkiga dhulka taagay maanta inaan gudihiisa fadhiyo layrtu saa igu soo dhacayso layrtu inay saa igu dhacayso gudihiisa dhex fadhiyo oo intaan darin makeeka soo gatay iyo firaash aan halkaan inta dhigtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aan dhex fadhiyo horta ilaahay baa mutaqaanaa nimcadaas ilaahay baa loo sheegtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan idinkan idiin sheegaya waxa iga dhimana waa ii hagaagaya mutuleelka guriga iga dhimana mutuleelka guriga maanta anoo iska kaftamaya qolka deeqkiisu baan gala wiilkaas waa wiil lalkasa aad buu ii jecel yahay waaba waxay qabi jireen nin lalkasa ayaaraha ayanimadaas adeerkiisii qabi jiray miyuu iiga xishoodaa ma habaryarnimo aan habaryar u ahayo gabar ma jeerteenaha dhashay buu iiga xishoodaa ma ilaahay dartiisu iiga xishoodaayo maadaama aan reer Facebook isla ahaan jiro dadkii hore isla ahayn buu iiga xishoodaa in badan ma isku soo dhacdhacna marka hadda waa kala xishoodnaa marka waxa weeye qolkiisaan waxaan ka iri waxaan rabaa dhowr qof oo iga bixisa mutuleelka guriga aan saaranayo waxaan damcay isagoo bilaa mutuleel inaan soo dego oo intaan shamiito mariyo haddana xalay aniga waxbaa wax ii sheega wax ii sheegan oo wax ilaahay agtiisa ka yimid aadanana ma ahan shaydaanna ma ahan jinna waa un ilaahay ummadiisa weeye ama ilaahay awoodiisa baan dhihi karaa guriga mutuleel saaro lacagna uma haysanin markaasaan waxaan ku yidhi haye saaranayaa waa inaan guriga mutuleel saaraa maanta anaan lacagtii mutuleelka haysanin baan wacahayay voy oo waxaan weydiinayay nin maanta rinjil iiga soo gaday baan weydiinayay oo bahalkii ah hardware ah marka iska weydiinayay mataqaana inuu hayo oo hayaa buu yiri ninkii baan la hadlay meeqa xabaa igu filan waxaan rabay inta waxa isku aadiyo in aan rinjiga halkaas ka dirsado waxaan leeyahay mutuleelka gurigan korontada xataa waa gashaday nalkii korontada xataa guriga waa igu dhex jiraan kow banaanka ganjeelka hortiisa korkiisa labadiisa gees iyo laba gees oo kale waxaa la saarayaa kii banooniga ahaa lagu xiraaya intii kale oo dhan waa dhammaysta channelkayga haddaad daawataan subscribe-ka iyo thumbka iyo share-ka iyo saara gurigan systemka aan ku dhisay horta indha adeeg baan ku dhisay indha adeeg soomaalida waxay tirahdaa indha adeeg uu dhaxal galaa gurigan maalintaan bilaabayay wallaahi akoonkayga lacagaan dhoo guri ku bilow ma jirin waxaan lahaa intaad xoogaa yar dhistid maalin walba aad wax yar ku darsatid baan lahaa markaan intii yarayd dhisay baan joojiyey shaqadii Nairobi baan aaday dahab baan haystay marka laba sad oo dahab ah oo midna gabar ii keentay midna anigu aan gatay iyo faraantiyo yaryar Nairobi baan aaday waxba idiin sheegayaa Nairobi baan aaday dahabkii baan soo gatay dahabku xilligan waa qaali dahabkii baan soo gatay because waxaan u baahday gurigii xoogaa yar baa la dhisay intii ugu darnaydna waa dhiman tahay lacagtii aan ku gatay dahabkaan soo qaatay shaqadii aan joojiyay baan bilaabay anoo shaqadii wada oo wixii bixinaayo baa dukaankii wuxuu igu yeeshay 200 kun markii horena maama waxaan ka soo deensaday lacag 100 kun anaa 100kaas kun la igu leeyahay dahabkaygina soo gaday oo aan 100 kun kaliya haysto dukaankuna 200 kun igu leeyahay oo aan 100 kana leeyahay nimanka de wax dhisaya mar walba 2 kun 3 kun 4 kun 5 kun haba waxbaad bixinaysaa
aan leeyahay aad bixisi baa waxaa igu dhacday baa ninkii 200 kun igu leh 100 kun haddaan siiyo aniga waa gacan marnaanaya kas shaqaalihi maalin walba lacag bay rabaan wixii dukaanku aan uusan haynin suuqa inaad ka soo gadatid baa la rabaa adeeg baa u baahan tahay shaqaalaha kuu jooga adigii baa nolol raba tan waa isku ilaalinayay waxaan ugu talagalay inaysan gacantayda ka bixin tani gabar baan u sheegay $2,000 bay ii soo dirtay $2,000 ninku lacagtii igu lahaa nabaan ku siiyey ma siiyey halkaasaan dayn horta ebraga noqday dukaankiina maadaama uu isagoo marka hore qaado wax walba igu hayay uu igu dhegdhegay ayaan waxaan ku iri wax dambana kaama gadanayo wixii aan hayo waan soo gadanaya Soomaaligaasaan ka soo gadanaya nabadayna inaad yaro ina kala kaxee ninkii madowga u ahay lacagtiisana waa siiyey nadiif baan ka ahay shilinkii aan u baahdo xabadda shamiitada markaan u baahdo dukaankaan tagaa lacagtan soo bixiya soo dir baan dhahaa ama waa la ii soo diraa haddaan imbeesa hayana imbeesaan ugu diraa haddii kale rasiidkaa la ii keenaa halkaa lacagta wiilka shaqaalaha baan ugu dhiibaa horta sidaasaan maanta ku jiraa anigu 100 kuna mooyaane deyn kaloo la igu leeyahay ma jirto gurigana mutuleelkaas mooyaane wax iiga dhiman ma laha korontada 100 kun bay ahayd waxbaa la iga dhimay waa bixiyey okay guriga gelintiisa waa la ii wadaa rinjiga waa la ii dhameeyey daaqadaha waa gatay wax walba waa dhameeyey safiito waa saaray biyaha walba waa iigu jireen wax yar dhagax hadda la rabo meesha baawurku marayo la dhigayo qurux badan dhagaxaas waa gatay lacagtiisa maanta la iga qaaday waxaa haray in inta shaqaaluhu soo galaan ay sameeyaan shamiito kala dhow xaba halkaan u taalo wixii ka dhimanaadana waa loo keenayaa horta gurigan waa ka falaxashay ceelkii waa qoday musqusha bilaacadeedii loo qoday waa qoday afka waa ka xiran waxaan rabaa ceel yar oo kale inaan qodo oo aan u qodo musqusha banaanka oo la dhisaayo baan rabaa iyo jikada inaan labadaas ay wadaagaan oo aan rabo ceelka yar ah inaan qodaan rabaa asagana horta waxaas oo dhan waxaan idinku sheegayaa waa shaqada aan qabtay iyo sida aan u qabtay maanta guri hanti ah inaan leeyahay oo guriga Nairobi maanta igu yaala Makina Road waa hanti ha ii yaraado ha ii weynaado waa ideeqa orod ba ideeqa maxaa ku soo haray air condition ba ii yaala waa gashara TV ba ii yaala waa soo gashara fadhiga waxa ii yaala qadar iyo chief ba ii yaala waa soo gashana waxa alaabo ii taala waa soo gashana jikada shelfis baan u sameysanayaa insha Allah mar haddaad gurigaaga dhex degan tahay $100 maanta heshid wax ku qabso 200 maanta heshid wax guriga geli koloosar halkaas oo qol ah aan sameystay waxaan ka dhigayaa shelfis buu rabaa iyo in loo waxeeyo waa helayaa gaariga aan wato payment baan bixin jiray guriga markaan dhisay gaariguna payment buu ahaa paymentigii shalay u dambeysay bishaan October baa payment igu dambeysay gaariga aan bixiyo insurance-giisa waa dhacay bishii hore bishaan ku noqonayay bisha 28 buu ahaa waa gashaday insurance baan gashaday horta hore nimcadaas Ilaahay baa siiyay Ilaahay baana mahadda iska leh waana caafimaad qabaa gurigaana wallaahi billahi tallahi wadna adayg baan ku waxeeyay